waxaan nafsadeenna uga tacsiyeynaynaa iyo ummadda muslimiinta dhammaan khusuusan talaamiiddii iyo ehelkii iyo axbaabtii uu sheekheenna ka tegay sheekh cismaan sheekh cumar sheekh daawuud culusow cubayd oo ku magac dheer sheekh cismaan xidig raxmatullaahi calayhi raxmat alabraar ilaahay ha u naxariista sheekha sida la ogyahay cumrigiisa wuxuu ku bixiyey cilmi iyo camalfal iyo dacwo fidinteed ayuu ku bixiyey runtii waxaan leenahay fakhru lislaam weeye fakhru soomaal weeye aniga taariikhda soomaaliya kuma ogi min bad'ihaa ilaa yowmina haada axad ta'liifiyey sheekh cismaan xidig kutubtii uu alifay oo kale waa la helayaa man huwa aclam minhu man huwa mithluhu waa la helayaa laakiin qof ka ta'liif badan ma ana arag qadiiman wa xadiidan haddii mana ana maqal hadday jiraanna waa kutubtooda inama soo gaareen waa dayacantay marka fii ma naclam intaan ognahay waxa weeyaan sheekhu wuxuu maaragtay badiye-aad ta'aliifta ayuu badiyey tu fara badan ayuu sheekha qoray waxaa ka mid ah kutubta sheekha uu qoray kitaabkan horteeda yaallo oo la yidhaahdo almaqaasid assaniya fii dikri axwaali الsaalixiin wa taraajim الsaadati الsuufiya 4 mujallad waaye sheekha isagaa gacantiisa iigu dhiibay anigoo ardulxijaaz u socdo wuxuuna markaa waxa weeye iigu dhiibay inaan u geeyo culammada xijaaz waxaan u geeyey mashaayikhdii aan u geeyey waxaa ka mid ah mufti shaaficiyati fii maka almukarama alxabiib cumar bin xamid aljaylaani oo durriyadii sheekh cabdulqaadir aljaylaani ah markuu sheekha kutubkan uu daalacday wuxuu yidhi hada shaykh waasicu liطilaac daalacashadiisu aaday u dheer tahay sheekhaanu waa nin wax kutub badan daalacday waayuu yidhi aad ula cajabay runtii marka mar aan ilaahay idinkiis aan oga dalbay sheekha in uu ijaazaad uu u diro maaragtay ilahay marwiyaadkiisa iyo wixii maaragtay wixii loo ijaazay asaga ijaazaad uu qabo xagga culumta wuxuu yidhi sheekhaani asagaan ijaazo ka dalbayna annaga ma ijaazaynayn asagaan ijaazo ka dalbaynaa buu yidhi waa diiday inuu maaragtay ijaazo u diro marka sheekha itisaal weyn ayaan maaragtay aan la lahayn falilaahi alxamdu gaar ahaan aniga itisaal weyn aan la lahaa markii igu horreysay oo sheekha aan arko waxay ahayd saan u malaynaayo 1999 anoo xerow ah oo magaalada marka la yidhaahdo joogo oo sayidii sheekh xasan ibnu yuusuf la joogo ayuu wuxuu yimid ziyaaradii weligii ilaahay shaclimaya saad ogtihiinna sheekheenna maaragtay alxamdu lilah sanadkiisa shaclimaya ayuu gelayaa oo asaga waxaa sheekh u ah adeerkiis sheekh axmed sheekh daawuudaa sheekh u ah sheekh axmed sheekh daawuudna waxaa sheekh u ah sheekh maxamed sheekh calimaya sheekh calimaya xaggaasuu gelayaa sidoo kalena haddii awowgii sheekh daawuud culusow waa min khulafaa'i sayidii sheekh calimaya ayuu ka mid yahay weliba khulafada waaweyn ayuu ka mid yahay marka sheekh calimayana waxaa sheekh u ah saad ogtihiin sheekh cali misbaax sheekheenna sheekh xasan macalin muumin ayaa sheekh u ah 5 nujuum ka mid ah 5 nin oo maaragtay mawlaana cabdiraxmaan dariiqa alidriisiya waddankeena u khaliifay 5taas oo kale ah sheekh xasan macalin sheekh xaaji wahliye oo maaragtay magaciisa la yidhaha sheekh yaxya cadow sheekh maxamuud wacays sheekh xasan yarow sayid maxamed yuusuf alweyteyni waxaana maqalnay sheekh calimay inuu tarbiyada u dhammaystiray sheekh xaaji bilaal iyo sheekha la yidhaahdo maaragtay sheekh xaaji wahliye inay u dhammaystireen marka sheekh xasan macalinna waxaa sheekh u ah mawlaana cabdiraxmaan oo ku duugan maqbaratu macla ku duugan sheekhi weynaa oo caalimka ahaa oo naanaystiisaba ay ahayd ashaaficiyu sagiir caalimka ahaa rabbaaniga ahaa isagana waxaa sheekh u ah sayidi axmed ibnu idriis ayaa sheekh u ahaa markaa sayid axmed ibnu idriisna sayid cabdulwahaab utaazi wa sayid cabdilcaziiz addabaaq wahaakada 2 sanad ayuu leeyahay sanad gaaban iyo sanad dheer ayuu leeyahay macruuf waay marka sheekha marka magaalada marka ayaan kula kulmay isagoo u imaaday ziyaaradii sheekh calimay awalna waa maqli jiray runtii aad baana u jeclaa aabahayna sux baa kala dhexaysay marka laakiin aragtidiisa markaasaa iigu horreysay marka waa raacay oo maaragtay ilaa majliskiisa ayaan u raacay inaan xerow ahay ayuu arkay kitaabo aan wato marka wuxuu aad marka uu iigu booriyey inaan cilmiga aan barto wuxuu ii soo qaatay maqaaladii imaamu shaafici man araada addunya facalayhi bilcilmi waman araada alaakhirata facalayhi bilcilmi waman araadahumaa facalayhi bilcilmi
إمام الشافعي وحيري قفك الدنيا ربع علمي هبرته قفك آخر ربع علمي هبرته ومن أرادهما فعله بالعلم قفك لبضض إنه اسكو برت ربنا لبضض إنه لا اسكو ربنا دنيا آخر اسكو ربنا فعله بالعلم علمي هبرته مركا آد وحان حسوسنا يا مركاس إنه علمي برشيس وبوريي كدبنا ما أرتي الحمد لله حرير أيام الله مركان حمر إمد ومر والبو تجري وزيارة جري أول زيارة وأن حمر أن كو زيارته مولعيسي ما أرتي كويا لي سيناي كويا لي أيام كو زيارتي أنا شيخ خلان هنوان حسوسنا وعدي قامنا أو نوسو جدي وحكم ذها آيات والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم آيات سنقو عدي ولبا ما أرتي حق بلاغة أيو شيخ أيو كهالي آيات بلاغة أيو كهالي وحوير ما أرتي والله يدعو إلى دار السلام فعل كهدي معمول كيسا لحذفه وحل الله وحو فائدين يا وحل عموم أيو فائدين يا مركا إلهي مدهن والله يدعو الناس لمدهن معمولك ولا حذفي عاملك معمولك ولا حذفي ماشاس وحل لقى فهميا عموم أيا لقى فهميا وأدوم إلهي يردن وحل لقى يريا إلى دار السلام لكن هداية إلهي وخاصه ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هداية إلهي وحي خاص كتاهي ضدك إلهي ماركا أو دوني مركا إلهي هنونيو دعاء مجلس كاس وكو ختم الشيخ وحن كحسوسنا إنه يري دعاء عجيب وقابر إنه دعاء وحير النعمة يروى الدنيا تالو يمد وين وآخرة تالو الله نسيب دافتي دباتة يروى الدنيا تالو iyo dhibaatada weyn oo aakhirada taalan Allah na mootiyo ducadaas ku duceeyay sheekh anaguna sidoo kale dhahaynaa ilaahay aan noo aqbalo marka sheekha alxamdulillah taariikhdiisa ma soo koobi karo runtii raxmatullaahi calayhi aniga ma arta xiriir waaweyn ayaan dhaxmaray sheekha alxamdulillah mashaayikhdeeda ayaan ku tiriyaa oo kamid yahay alxamdulillah taariikhdiisana wax hadda aan halkaan ku soo koobi karo ma aha alxamdulillah waxa cajiib ah in caalamul islaam oo dhan ودن كستا وتعزية صادر وشيخ وسو تعزية إن وزير هذه يوم ما أرتي حل باندي يوم مدحدي الدلك أي كوسي يقول قولي سمارتي زويدي سيكوسي يقول قولي سيو تعزية نيسو مركان شيخ صومالي أنت فيما نعلم وسداس لو تعزية في عصرنا هذا لا نعلم ما قرنين مركا وحن لنا شيخ عيسى شرف الله زيادة بعد سنة إلهي إن ما فدنا يوم وحن لنا إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإنا لفراقك يا شيخنا لمحزونون مركا إلهي شيخ رحمة الله عليه إلهي رحمة ديساء زياديو إلهي رحمة ديساء زياديو وحج على شيخ إن علمي لبرته إن لقوا عمل فله إن مركا وحوي دين الله نصريه سداس وجعلا وحوي وحكبوا حي هم الأمة يا كبوا حي آذو مارت أمد أقوى ولاية كنتي قال هان أمد الصوماليات وكول ولاية وحن أقنا إن قرامة بدل ونفره إن إلهي أمد إصلاحيه هن آخر إن أقنا هاي إن وحن أقنا شنت الصوماليات وكفكراي صومالي ذا هذا ما أرتي وهشة ما هي شنت الصومالي وكفكراي شيخ إن يسكون معته واحد بدل نسوي ونوجه الله مركب حلينا هاي شيخ إلهي رحمة الله الله يسوع شيخ مقام كيس الجوب بدلي شيخ عبد الفتاح شيخ أبو بكر شيخ أحمد شيخ داود إلهي أسكن عزها سيو كي مقامك الشيخ أقوم الله كياله وأنا نوش شيخ أنتو نولا أيو نوش أو ما أرتي إلهي إذا في سنة كاسنا ممكن مقامك سقومي لها وياي مركا الحمد لله تاسنا وحكمتها الشيخ إخلاص كيس حكمتها معي الأولاد دي الشيخ واجب تأسيه ودلي وموسى ديبنا مدهن أي أدينك دخل مدهن مركا نيكي أو علم بدنا أسرة أيو ديبي مركو فيري وحير أنا مركي اللي ديبي حل كاسه وحال يقول ديبي يا أخران أو حودي كان اللي يقول ديبي اللي يقوم ديبن ما أرتي مركا الحمد لله أنا نكي مركا أسرة وأقوم بدل يعني ديبن مركا شيخ سعودي بيش عبد الفتاح وأنا كنت عالم أو مدرس أو شيخ مقام كيسهان كرسان في لينو